ku soo dhawaada daawadayaal warka warbaahinta walwaal qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ war cusub ka soo saartay dhegeysiga kiiska badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo ku yameeyay hadlay doorashooyinka dalka ku yeeshay Muqdisho. ciidamo cusub oo gorgor ah oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ka baqaya in lagu shirqoolo imaanshihiisa Muqdisho. qaramada midoobay oo ka hadashay heeriyaashii ku dhacay xerada Xalane. howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo shakhsiyaad badan oo lagu soo qaqabtay. intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka xulan. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalkan like noo saar, share garay oo asxaabtaada la wadaag. waa hagaag haddii markaan aan ku bilaabo qodobada aynu ku bilownay. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa war cusub ka soo saartay dhegeysiga kiiska badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa war cusub waxay ka soo saartay qaabka loo dhegeysan doono dacwadda kiiska badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya oo muddooyinkii ugu dambeeyay soo jiitamayay. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dhegeysiga dacwadda ay socon doonto 15 ilaa 24 bishan Maarso aynu ku guda jirno, kana dhici doonto xarunta magaalada Hague ee dalka Netherland. garsoorayaasha maxkamadda ay uga qayb galayaan dacwadda si toos ah iyagoo ku sugan maxkamadda, halka kuwa kale ay uga qayb galayaan qadka dhinaca internetka sababo ku aadan cabsi laga qabo caabuqa COVID-19. sidoo kale dhinacyada ku matalaya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo dacwada u dhaxayso ayaana qaarkood waxay ku sugan yihiin xarunta maxkamadda, halka qaarka kalena ay uga qayb gali doonaan si fogaan arag ah oo dhanka internetka ama aalada Zoom-ka. dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaana hadda magaalada Hague waxaa ugu kala sugan mas'uuliyiin iyagu labada dal ka socda, kuwaas oo iyagu ka qayb noqonaya kiiska badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Soomaaliya ayaa waxa uga qayb galaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, iyadoo sidoo kale ay ku jiraan mas'uuliyiin kale oo dowladda Soomaaliya xilal ka haya. dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay isku hayeen arrimo badan oo ku aadan dacwadda badda, waxaana dowladda Kenya ay u muuqataa mid ku hungowday damci ahaa in biyaha Soomaaliya ay qaadato. dowladda Kenya ayaa marar badan waxaa la sheegay inaysan haysan wax dukumeenti ah, iyadoo dhowr mar ka meersatay in la qabto dacwadda, marar badanna gudbisay codsiyo ku aadan in dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa Muqdisho waxay ku yeesheen shir looga hadlayay arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan. kulankan oo ka dhacay hoyga madaxweynaha Jubbaland uu ka degan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka oo weli muran xooggan uu ka taagan yahay, iyadoo madaxweynaha Jubbaland uu hadda ku sugan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana madaxweynuhu uu ka qayb galayaa shirka dowladda federaalka Soomaaliya horay ugu baaqday inuu ka dhaco magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana madaxweynuhu isagu uu ujeedka ugu weyn u yimid Muqdisho uu yahay inuu ka qayb noqdo shirkaas iyo in la dhammaystiro heshiiskii la gaaray 17 Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2020. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana hadda waxa uu ku sugan yahay Muqdisho, waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu hadda degan yahay xerada Xalane oo ku taala garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde oo amnigeedu ay sugaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee jooga Soomaaliya, waxaana sidoo kale madaxweynuhu amnigiisa sugaya ilaaladiisa gaarka ah oo iyagu shalay ka soo degay magaalada caasimadda ee Muqdisho. ciidamo cusub oo gorgor ah ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada caasimadda ee Muqdisho laga soo dejiyay cutubyo ka tirsan ciidamada gorgor oo tababar ku soo qaatay dalka Turkiga, kuwaas oo diyaarada militari ay ka soo dejisay garoonka Aadan Cadde. sidoo kale boqolaal kale oo asgar ah ayaa laga dhoofiyay magaalada Muqdisho, kuwaas oo tababarka gorgor ku soo qaadan doona dalka Turkiga, waana ururkii 7aad sida lagu shaaciyay qoraal ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Ismaaciil Aadan Cusmaan oo horay u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa waxa uu ka warbixiyay goorta la bilaabay tababarka ciidamada gorgor, hanaanka lagu soo xolo iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin ciidamada kale ee dowladaha kale ee Soomaaliya ay u tababaraan. Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in heshiiska lagu tababarayo ciidamada gorgor ay gashay dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May ee sanadkii 2018. xilligaas shir ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa lagu heshiiyey in Soomaaliya loo dhiso ciidan gaaraya 18,000 oo militari ah, kuwaas oo dowlad goboleed kasta laga soo xulayo 3,000 oo askari, halkii marna waxaa la diyaariyey 300 oo askari oo hal urur ah. ciidamada ayaana waxaa laga soo xulay deegaanada
shanta maamul goboleed ee dowladda federaalk Soomaaliya hoos yimaada. Waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda in tirada lagu heshiiyey ee dowladda Turkiga ay u tababarayso Soomaaliya ay tahay 18,000 oo askari oo militari ah, kuwaas oo maamul goboleed kasta laga keeni doono 3,000 oo askari. Marka tababarku uu ka bilowday dalka Turkiga, waxa uu sheegay inuu yaraaday tababaradii dalalka caalamka ay siin jireen dowladda Soomaaliya. Sidoo kale Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in hadda ay wax badan iska bedeleen hanaanka lagu soo xili jiray ciidamada gorgor, isla markaana waayihii dambe filla Soomaaliya ee isku soo kooftay soo xulista askarta ku biiraysa gorgor ee tababarka loogu diyaarinayo dalka Turkiga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka baqaya in lagu sharqoolo imaanshihiisa Muqdisho. Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, ayaa la filayaa inuu soo gaaro magaalada caasimadda ee Muqdisho, isaga oo sidoo kale degi doona xerada Xalane oo si weyn ciidamada AMISOM ay u ilaaliyaan. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kaga qayb galayaa shirka arrimaha doorashooyinka looga hadlayo ee ka dhacaya xarunta Xalane, kaas oo beesha caalamku ay garowsatay isla markaana ay dabada ka riixayso. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana horay u soo gaaray Muqdisho, waxa uuna degan yahay xarunta Xalane. Shirkan ayaa xoogiisa waxaa soo qabanqaabiyey wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya, kuna qasabtay in madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni ay yimaadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay kaga qayb noqdaan shirka la filayo in dhowaan uu ka furmo Muqdisho. Beesha caalamka ayaa iyadu waxa ay dabada ka riixaysaa qaabkii shirkaasi uu ku dhici lahaa, isla markaana loo dhammayn lahaa madmadowga siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa arrimaha ugu badan ee la isku hayo ka mid ah arrinta gobolka Gedo oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu aad kaga soo horjeeday in dowladda Soomaaliya ay gobolkaasi maamusho. Shirkii Dhuusamareeb ka dhacay ayaa waxyaabihii fashiliyey waxa ugu weynaa arrinta gobolka Gedo, waxaana hadda suuragal ah in shirkan sidoo kale uu ku soo dhammaado is-afgarawaa, iyadoo sidoo kale ay xusid mudan tahay in sidoo kale uu ku soo dhammaado heshiis laga gaaray hanaanka doorashooyinka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay khasaaraha hoobiyaashii lagu garaacay xerada Xalane. Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Swan, ayaa cambaariyey weerarkii ahaa 6 madaafiic ee ku dhacay gudaha xerada Xalane ee gegida diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaas, mana jiraan xarumo ay leedahay Qaramada Midoobay oo waxyeello ay ku gaartay. Sidoo kalena waxaan jirin shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobay oo ku waxyeeloobay hoobiyaashaasi, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo gaaraya ilaa iyo 2 ay ku dhaawacmeen hoobiyaashii ku dhacay xerada Xalane ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaana waxa uu kabasho degdeg ah u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay goobaha madaafiicdu ay ku dhaceen ee ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, inkastoo falal noocaasi oo kale ah oo hoobiyaal dhowr mar lagu garaacay xerada Xalane. Hadda saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa waxaa ka go'an in ay garab istaagaan dadka Soomaaliyeed ayna sii wadaan taageerada ay u fidinayaan guud ahaan Soomaaliya. Howlgal qorshaysan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana halkaasi lagu soo qabtay shakhsiyaad badan. Ciidamada booliiska ee maamulka Jubbaland ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo ka sameeyey xaafado badan oo ka tirsan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana laga helayaa faahfaahin dheeraad ah howlgalkaas. Intii uu socday howlgalka ayaa ciidamada booliisku waxa ay soo qabteen 2 ruux oo magaalada Kismaayo si qarsoodi ah u soo geliyay maandooriyaha loo yaqaano xashiishka, kadib markii xogo laga helay dadka shacabka ah. Saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxa ay tilmaameen in la qabtay maandooriyahan oo ay doonayeen inay ka ganacsadaan raggaasi, isla markaana hadda lagu xiray saldhig ciidan oo ku yaala magaalada Kismaayo, isla markaana ay hadda ku socdaan baaritaano. Sidoo kale saraakiisha booliiska maamulka oo iyagu la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in 2 ruux ee gacanta lagu dhigay dhowaan la horkeeni doono maxkamad si sharciga loo marsiiyo. Magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa horay sidaan oo kale loogu qabtay maandooriyaal badan iyo raggii ka ganacsanayay, waxaana laamaha amniga ay digniin u direen dadka arrimahaasi ka ganacsada. Waad ku mahadsantihiin daawashada warka. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad na soo booqato, subscribe noo saar oo like noo saar, asxaabtaadana u sheer gareey.